السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي qaaliga waa idin salaamay. Waxaa idin leeyahay wixii idin tahay wanaagsan. Qof walba meela jooga dal iyo dibad, qof meeshii joogo ayaa ka salaamay. Salaanta islaamka oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib walaalayaal YouTube aan leeyahay. YouTube aan leeyahay. Walaalayaal subscribe hala ii saaro waayo codsigayga horey ayaa u soo jeediyay. Codkayga hoogo hadaa gaaban yahay kulli earphone iyo waxa uma isticmaalo. Taleefankayna waa u jeedaan mugdi iyo shuuc ayaa ku jirto. Saas ay tahayna kulli waa iska jeclaystay inaa idin soo dhigo video. Waxaa idin leeyahay walaalayaal marka hore waa salaamantihiin. Marka labaad waxaa idin kaga baahanahay in garab la isiiyo oo la garab istaago oo walaalnimo, maaminimo, Soomaalinimo la garab istaaga ayaa u baahanahay waayo kulay codsigay mar hore ayaa soo gudbistay, laakiin qof maanta hatta su'aal igu weydiiyay ama fiirsaday kulay wax yar waa fiirsadeen waa arkay, laakiin qof ii sheer gareeyay ama dadkii iga gaarsiiyay ma lahan. dadaa magacaabay magaca sheegay magacii aan sheegay wili qof igala soo xiriiray ma arkin. walaalayaal hooyo ahay waa ogtiin hooyo maanta Soomaaliya jooga, gaar ahaan gobolka jooga. waa ii jeedin Soomaaliya gobolka jooga Soomaali maanta waa ogtihiin abaaro, rafaad, dhib ayaa ku jirta. waa ogtihiin maanta ilmihii oo aabahooda joogo ayaa rafaad isilac ku nool. runtaa idin sheega, laakiin ilmo hooyo keliya u joogo. hooyadiina wax maanta ay haysato lahayn, waxa meel ayada aado garan la maxaa dhihi lahaydeen arrintaas. walaalayaal ha i dhayalsanina. mar labaad iyo mar saddexaad odaa idin soo duubay, welina jawaab idinkama helin. walaalayaal waxaa idinkaga baahanahay Soomaaliya codkayga ma dheero, laakiin Soomaaliya ka dhashay. codka gaaban in wax ka fahmi doontiin ayaa rajaynayaa biidhnillaahi alkariim. waxaa idin leeyahay walaalayaal maanta waa adduunyo, bari waa aakhiro. maanta walaashiina oo dhiban codsi idinka soo jeediste haddaa garab siinin, bari maxaa ii qaban kartaan? qabriga waxa igama qabanaysaan. laakiin adduunkaana walaal laga yahay, adduunkaana wax laiskugu garab siiyaa, adduunkaana garab laisku siiyaa, adduunkaana gacan laiskugu fidiyaa, adduunkaana wax walba laisku yahay. laakiin mar haddaa dhimato adna waxa igama rabto, anigana wax kaama rabo. laakiin waxaa idin leeyahay garab hala isiiyo walaalayaal. maamo waa ogtihiin maanta meel ayada ka tiirsan lahayn oo iska taagan, fikir i wax ahayn ani maanta haya lahayn. marka walaalayaal kolay yaab ma lahan. dhibkana wax lala dhashay ma ahan, waa wax kuu qoran. waa ii qorneed alxamdulillaah, kuma xumi. laakiin waxaa idinkaga baahanahay mid dadkii iga bixin lahaayeen inaad noqon doontiin ayaa rajaynaya biidhnillaahi alkariim. ilaahay ayaa ka rajaynaya, idinkaa idinka rajaynaya garabkaas inaa isiisaan. subscribe like inta wixii laisku siin jiray inaa igu siisaan, si ugu dhaqsiyaha badanna aan meel ku gaaro oo meeshii la sheegaya aan ku gaaro ayaa u baahanahay. garab igu siisaan, gacan igu siisaan, walaalnimo igu siisaan, hooyanimo igu siisaan, Soomaalinimo igu siisaan ayaa u baahanahay. marka waxaa idin leeyahay soo dhawaada in badan
caarish haddana waxaa sameyneynaa caarishkaana hagaajinaya haddii ilaahay idmo. ilmaha qaar dugsiya aadeen, qaarna iskuula aadeen, marka insha allah biidni illaahi alkariim nala socod wanaagsan. joodari hataa caadi maaha. kolay anigoo idin soo dhow codkayda idin gaari la-ah. haddaa idinku fogahay kolay cod duubow iyo cod karsaarowna ma aqaani, marka ila socod wanaagsan. okay, caarishka si loo hagaajiyo waxaa idin soo tusaa insha allah. ya qof walba wixii ilaahay siiyo alxamdulilah waa inuu dhahaa, soo maahan. alxamdulilah qof walba wixii ilaahay ku manaystay inuu ku qanacaa. waa ku qanacsanahay inaan meeshaan ku jiro, laakiin gacan walaalnimo. okay, ma ujeedaan, laakiin hoogo waa idinka fog tahay mo meeshaan haddaa soo dhigto ka hor ma dhigmaysee. maxaa sameeyaa wa yaa rabbi, haddaa hoogo horon tahay. wasaq biyo la-aan iska jirto. biyo la-aan jirto, ma fahamtay. biyo la-aan jirto, biyo la-aan. iskoob
iskoobadan waa ujeedaan. Si loo hagaajiyo ima jeedaan miya ila socda wanaagsan fiintada ila socda wanaagsan iskoobadaa gaaban ma aragtaa aftiin waay miya tan mugdi waay miya iskoobadaaba dan daalinaysa socod wanaagsan aarashka si loo suubiyo igu barta ya inshallah hay igu daalin ha daalina okay
saan ay u jeedaan shalay tirtiray maantana saan waa maantana saas arshkiisaanaa ku soo dhigay ma fahanteen wax badanaa ii dhimin saddex qol waaye laakiin waa daala iskoobo ma lahano iskoobadaa yar saas darteed marka ma hagaajin karo midkaana igu filan haye marka waxaa idin leeyahay subscribe like share comment intaba hala ii saaro saasaa idinka rabaa walaalnimo garab istaag bani aadinimo soomaalinimo intaba waa idin salaama kheyr badanaa idin dhaafay kolley wixii comment iigu soo qortaan jawaabteeda diyaar waaye waa sameynaa kolley wixii aan awoodo oo sameey dhahdaan waa sameynayaa marka waxaa idin leeyahay garab siiya idinkuna dhinaciina hala igu aajisin yaa la igu aajisin waayo qof haddaa garab la siinayo qofka ugu mudan ayaa ahay waayo maamo maanta waa ogtihiin guri jooga shaqo aqoonin oo ilmihiina maanta keligood ilaahay ka sokow ani keligay hortaaganahay aabbahood waa dhintay ilaaha u naxariisto caruurteydana leh waaye ilaaha ii daayo 4 gabdhood ilaa wiil horeyna waa idinku sheegay dad khaas hataa garab waa weydiistay laakiin qof iga soo jawaabtay ama codkayga dhagaystatay ma lahan hala ii sheer gareeyo dadka hala gaarsiiyo youtuberada waaweynka midka dhexdhexaadka kuwa ugu hooseeyo ugu dambeeyo kuwa daawadaha ah intaba in garab isiyaana u baahanahay kolley saasaa idin leeyahay waxaa idinkaga baahanahay garab buuxo in la isiiyo oo walaalnimo la ii garab istaago ayaa idinka rabaa waana idin salaamayaa kheyr badan caafimaad badan baay soomaali maxamed meel kasta ay joogtaan dal iyo dibad daafaha dunida meel kasta idinka joogtaan salaan sare waxaa idin leeyahay garab ballanteenu waa shaqo meeshaan hala igu shaqeeyo meeshaan garab hala igu siiyo abaalkiina kolley ilaahay agtiisa waa ka heli doontaan haddaa garab igu siisaan biidin ilaahi alkariim insha allah bye bye